qaar ka mid ah hawldoorka haweenweynaha ku dhaqan magaaladoodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed oo ay wehelinayso gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbul xaakimka wadaniga gobolkaasi Najax Nuur Muuse ayaa caawa kulan ay isugu yimaadeen oo ka dhacay gudaha magaalada Oodweyne waxa ay hambalyo iyo bogaadin ugu direen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Cabdi waxaana Ilaahay uga baryeen inuu u fududeeyo xilkan ay u yimaadeen shacab weynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo geesta kalena madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku amaanay waxqabadadii iyo horumaradii uu qaranka ka hirgeliyay muddadii uu xilka hayay waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan leenahay madaxweyne hambalyo Ilaahay xilka ha ku fududeeyo kii dadkiisa iyo dalkiisa mideeyay Ilaahay ha ka dhigo dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaan wada dirayaa salaan guud doorashada quruxda badan ee wadankeena ka qabsantay dhammaan ummadda wada hambalyeynay madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne Ilaahay meel khayr qabta adna ku geeyo in soo halgamay baad ahayd nin wadanka wax ka soo qabta Ilaahay meel khayr qabta ha ku geeyo dhammaan wada salaamaya ummadda reer Soomaaliland salaamaya haweenweynaha gobolka Daadmareed ay soo abaabulay inay u hambalyeeyaan madaxweynihii sabootiyaana madaxweynihii tagay waxaan ku leenahay madaxweyne Ilaahay xilka kugu asturo madaxweynihii tagayna Ilaahay wax khayr qaba bedel khayr qaba Allah ku siiyo saddexda xisbi qaran ee soo baxay idinkan waan idin hambalyeynaa dadkii ummadii dhammayd ee u soo halgantay xisbiga inay soo saaraan waan u mahad celinaynaa anagoo ah haweenka gobolka Daadmareed anagoo ah haweenihii gobolka Daadmareed ee degmada Oodweyne aynu hogaaminayso gudoomiyihii garabka haweenka Najax Nuur Muuse waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii ku-xigeenka ayaanu hambalyeynaa madaxweynihii hore ee mudane Muuse Biixi Cabdina waanu bogaadinaynaa isagana waanu sabootiyeynaa waxaanu leenahay Ilaahay meel khayr qabta oo ku nabad qabta Allah ku geeyo habarban ku naadug bayna cadar baa tahay Ilaahay meel aad ku khayr qabto ku nabadta Allah ku geeyo waan ku leenahay waan ku ducaynaynaa madaxweynaha cusubna waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay hambalyo haweenweynaha gobolka Daadmareed u diraya hambalyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan salaamayaa oo kale madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Axmed Cali iyo saddexda gudoomiye saddexda xisbi qaran ugu horeeyo xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Maxamuud Xaashi iyo mujaahidkii weynaaye Maxamed Kaahin waxaan leeyahay alla xilka idinku asturo Cabdiraxmaan waxaan leeyahay xilka kugu asturo halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan leeyahay madaxweyne Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu Ilaahay xilka kuu fududeeyo inuu Ilaahay ka dhigo kii dalka kala go'ay inuu Ilaahay isku xiro haweenweynihii gobolka Daadmareed oo dhan baanu nahay waxaanu salaaminaa madaxweynaha cusub waxaan leenahay madaxweyne Ilaahay xilka guudkaaga oo saaray Ilaahay kugu asturo madaxweynaha horena waxaan leenahay habayar waxaad tageesi halyay qaran baad hayd waxaad ku guuleysatay labada doorasho ay saaran madaxweynaha ku guuleystay adiga ka hor lama arag waan ku hambalyeynaa habeer adigana halkan maanta waxaanu ka salaameynaa madaxweynaha cusub ayaanu ka salaameynaa mudane madaxweyne Ilaahay xilka ha kugu asturo Ilaahay baan ku baryaynaa Ilaahay xilka kugu asturo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay meel khayr qabta Allah ku geeyo Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay ka dhigo nabadgelyo iyo nimco iyo bashbash iyo barwaaqo marka hore waxaan salaamayaa haweenweynaha gobolka Daadmareed ay u horeysan Najax Nuur Muuse mar labaadkana waxaan u hambalyeynayaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa madaxweynihii xilka ka tagayna waan sabootiyeeyaa halkan waxaan ka salaamayaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro madaxweynaha iyaga ayaan ka salaamayaa Cabdiraxmaan waxaan leenahay mudane madaxweyne dee bariya galbeed dadkii maanta adow madaxweynaha xisbigiina waad ku guuleysatay madaxnimadii lagaana filmaayo nin ummadda kala ka tooro kala wadwada inaad noqotee kii bariya galbeed isu keenay labaad Cabdiraxmaan oo tahay garabkaagana Allah ha galo dawladana waxaanu leenahay dee ha lala dhisi Cabdiraxmaan ha la garab galo shacbigu ha la shaqeeyo waxaanu leenahay balweynta qarxatis maanta kursigii 32 sugayseen tolkiin ayaan saaray iyo bahweynta Soomaaliland oo dhan Ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa ummadina doorato dhan waan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waa hambalyo waa ku mahadsantiin madaxweynaha iyagana waan hambalyeynaa waxaanu leenahay Ilaahay kugu garab galo kursiga aad fuushay Ilaahay ummadda ha ku sakhro Cabdiraxmaan waxaanu ku leenahay
markay dowladdaada fayras bilowdo hooyada dayarta jilicsan bixin karayn jaamacadii aan bixin karayn iskuuladii yaayada yar iibinaysay ay wax waliba ku kaceen horta kuwaa ka soo bilow saad ugu naxariisan lahayd iyo sideed wax uga jebin lahayd iyo sideed u gargaar lahayd ardayda yaryar ee hooyooyinkood aanay waxba bixin karayn ciidamada xidhan ee laascaanood ku xidhan caruurahoodii iyo dumarkoodiiba way joogaan cid caawisay iyo cid wax siisay ma jirtee caawinimadaada koowaad iyaga ugu horeysay sayid maxamed cumar sayid darwiish warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada oodweyne